قف كريان بجاج سوق رحيي قمر معها اي وعباس اسلاسيين ولا سوق رحيي وحانا سوق رحسي قفتيسي ودبيسي ay umtida ingiliis Soomaali u ahay gabadha shaqoolka iigiisata Soomaaliya ahayd garabka waa kaasa mushidin waxa shock waxa maskaxda aaga furmay gabadhii shock aad u far badan waxa maskaxda aaga furmay buuq ayda danbo waxay leedahay mar iyo labo Soomaali waaye Soomaali ma aha mar waxay leedahay arxan daradooda sidee saas igu galeen maxay leeyahay Soomaali ma aha marna waxay leedahay Soomaali waa gabadhii waxa qalbigeeda iyo niyadeeda iyo dameerkeeda waxa ka daagdagi waayaybo in qof dhiig Soomaali leh inuu gabadhii sidaas u galay waa mid ayada nafsiyan ay iska dhaadhicin weysay ay naqatay أرحم درنا بارك أتكا بارك إذن مذوبالي بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام ولا أهلا ما يلبى الدنيا إذا فاتك شوتين واحد لنا هاي وقتك إيواني حق إذن معنا سوى كلمتين مقال كما كوري هدوية سبسكرايب نوسا لايك شيرت كومنتيك وإذا كدنكينا هرنا دقاجي ولا هذا إنه أمريكا بليس عد سبيعي قطعي شو كلام تلبي إتمنكم بعد سنة سدع إتمنكم أن يرسلني كوكدو سيدو كلام تسألين كعمل قال كعين كورا عين كتكسو عرفتين واي ولا ليالو أيام تام وأنتي وحاسعته ما يعني إن يسودي وحاسعته كوكدو أنتي ريان بجاج أن دب وصور لابتي سيدو كلامتي والله العظيم ريان بجاج وحامله كلي سي إلهي ويا أديكو ساس قدامنا قلبي وحنونا أدو ساس وفيرسني سيدا نيدا بدوميس ور أرحم درنا ومدان محاكا خلط الله يا رب ور قبدا أي صوب بحضي إلا إي هدبو رفات أمي بجرتا وحي نقطيب وين نقطيب المقالكين ay umtida ingiliis Soomaali u ahay gabadha shaqoolka iigiisata Soomaaliya ahayd laakiin ani ahaan arxan daradooda Soomaali ma umaleey walaa soo marka dadka igu walwala dhaarayaan isbitaal jiiftaasaan taasoo isbitaal waa jiifay waxaan maalmo ka hor dhaceen video xiliga idin soo gaaray waa xilli ani oo aaba sii reysanayo okay videogaas waa la iga duubtay waa la dilay hadda ma ahayn waa la igu rakaateynay waxyaabaha ay leedahay waa lagu soo dhigay la igu cabsina soo markii dambana banaanku imaada markaasna aniga waa xanuunsanaa dhaawacyadeedii way bislaayeen alxamdulillah inkastoo hadda reysanayo gabadhii waxaa ku dhahay ayada dhanba gabadhii waa gabarida dhan moraalka dhan kadib gabadhan ay soo talaabo qaadaysay waxay ku soo talaabo qaaday ayadoo nolosha dagaalamayso ayadoo la dagaalamayso waxa la dhahay kii dadnimadeedii iyadoo la dagaalamayso awoodeedii kartideedii iyadoo la dagaalamayso inay isa soo saarto ayadoo rabtay gabadhan soo baxday ha ahaato waxay noqotay qof xariir fara badan soo sameeyay oo adiga dhowr nin soo guursatay ha ahaato alxaasid waxay ahaataba waa business woman gabadha keli ugu adkaysiga badan way u baahnayaan waa hooyo kaligeeda isku filan waa hooyo kaligeeda caruurteeda run ahaantii u dhabar xeeratay oo dhabar adeegtay oo indha adeegtay dagaal caadi ku socoto experience caadi ku socoto maxaa laga sheekoolaa maxaasiga dilani ya sidii halaheenka hadda jirta ayaa waxay tahay waxaana leeyahay mar waxaa ka dambeeyey nala daawaco garabka waa kaasa mushidin waxaa jira wax prank iyo waxyaabo prank waxaa laga yaabaa inaad isdhahdeen been idin sheegaysa ma rabin inaan furo laakiin waa tusaya ujeedin soo maahan gacanteyda ujeedin see noqotay waxaa saas ii kala midi waaye
okay gacanteeda halkan waa ujeediin intan waa ujeediin inuu jirkayga meelo badan waxaa jira aan idinla wadaagi karin okay soo marka ani waxa ay hela cadow ay ahaayeen Soomaali ma ahayn qof yacni marka xasuusto ma jeclina xasuusto Soomaali ma ahayn aad dad u xun ay hela soo ina idin sii macnaa idin si faahfaahiyo wax macnaa iima keenayso soo marka waxa idin sheegaya dhaawacan way gaaridaasu wax baraanki ma jiraan nafteeda oo halis gasho halkaas midliga gali laba marne yani wax oo noqon kara war waxaa fahmi waayey qof social media ku jiro walaalkiisa dhibaataysan dhib haysto oo kasii samaynayo wallaahi bilaay dadkan waxaa ku tilmaama ma kasahay dadkan waxaa ku tilmaama ma dhaqaani yaa damiirkee siinayo ayada nin ay ilmo u dhashay in uu video kasoo qarxin doono damiirka keewaa damiirka siinayo ka dhigba gabadhan qaladaad horwey ay soo gashay misane dad unbay qalad ka soo gashay laakiin arxan darada ayada loo galay qof ay isku gashay iyada meeshaan ma jirto qof ay arxan daradaas ay u gashay ma jirto ee Soomaalid ayaa waxay tahay qofkii maanta dhibaata haysato waxaa la jecel yahay inaa dhib kaleenta laga sii sameeyo fiyuus laga sii diyaariyo ya ka adduunka qofka Rayaan Bajaaj soo qarxiyay qamar ma aha ee waa Cabbaas isla asigiina waa soo qarxiyay waxaana soo qarxisay qoftiisii u dambeysay ee uu qabay oo inta waa lagu kala horeeyaa ma ahane waa iskiga dambeeya aabe cidda aan weli arkin videoga Cabbaas follow soo dheh Instagram-kayga soo raacdo linkiga meesha idin soo dhigaya waxba la qarin maayo aaba banaanka la soo dhigaya qofkii dumarku isiiye asagana oo hina u dambeyn doonto Rayaan qoraalkan ee story Snapchat-ka soo dhigtay dadka badanaa waxay ku tuumayeen qamar suugaani Rayaan waxay dhahday ninka ku qabay ee xalaasha ku ahaa ee ilmaha aabood ahaa hadii uu ku dhahayo lacag keen video ka haya intee la aada wax saasay dhahday qoraalka sidaas oo ah dadka badanaa qamar suugaani ku jeediyeen qamar suugaani ma aha ee waa Cabbaas asagana video horta gabadhan waxay soo martay dhibaato aad iyo aad u fara badan ahaanteed way soo martay qofka bini'aadamkana markuu dulqaadka uu ka bato waa daala maskaxda noogiisu meel kasta daaliisu heer wuxuu u dhawaanaa qofka isaga dhan inuu ku sigto inuu isdilo ilaahu adduunka maxaa ii keentay laakiin imaanayso bas gabadhan waxaa cariiri ah oo loo diiday oo loo arki waayey oo meel walba oo jag loogu siinayo waxay tahay inta ay ayada karti ay leedahay inta ayada ay isku filan tahay adduunkaana bini'aadamkaana ma rabaan inaad adiga isku filaatid inaad adiga isku akaatid inaad adiga naqatid qof xarageynayo inaad adiga naqatid qofka dadka ka dhex muuqdo inaad naqatid cid u baahan malaha daas waayo mar walbaba ayada oo mar walbaba ayada oo waxaa leeyahay loogu yahay target oo in la dilo la rabaa in la dhibaateeyo la rabaa in la silciyo loo baahan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun walaalay horta ilaahay aa ku naxariista ilaahay baa iskale ilaahay caafimaad Allah ku siiyo ilaahay caafimaad Allah ku siiyo kulley maanta dadka kula rabo mishinka inay adiga ku dilaan mise rabi kulley waxaad maqan lahayd maanta hooyo ka dhimata carruurteeda u dilaayeen umadan alla beerka adkaa war Soomaaliya maxaa idin baahan tallaabo yar cid kuu rabto inaa qaadid ma jirto inaad saas nuucs yar ali aad samaysid cid rabto maanta war walaalayaalo maqalkan hala sheergeliyo subscribe-ka iyo like iyo share iyo comment iyo noo saar insha Allah waxaan ku kulmi doonaa tan iyo next maqal ayaamaha dambe aad iga fadhiisay wallahi la calim ee maqalkan meesha loo baahan yahay aleegeeyo waxaa leeyahay jumca mubaarak tan iyo waxaan ku kulmi doonaa next video ee ku kulmi doonaa hadii ilaahay sidaa ilaahay